بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. Soomaalida hore markaan kale waxay dhihi jirtay Ilaahow aqoon la'aan ah nagu cadaabin ee xanaha nooga tagi. Taasoo macnaheedu yahay wixii aan aqoon la'aan noo geysay Ilaahay baanu ka weydiisanayaa dambi dhaaf ee xana Ilaahay wixii aanu si bareer u geysano hanagu qaado. Gudoomiyaha ku-meel gaarka golaha shacabka, guddiga doorashada golaha shacabka, xildhibaanada sharafta leh, ciidamada amniga, warbaahinta iyo marti sharafta kale, waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. xubnaha baarlamaanka golaha shacabka waxaan marka hore idinku hambalyeynayaa kalsoonida aad ka soo hesheen deegaanadii iyo dadkii idin soo doortay. waxaana alla uga baryayaa inuu dhammaanteen inaga dhigo kuwii xilkaas uu u fududeeya Ilaahay. mudanayaal, waxaa sharaf ii ah inaan maanta hortiina ka caddeeyo inaan ahay musharax u taagan qabashada xilka gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya. waa mahad Allah inaan in badan oo xildhibaanada maanta ah ee halkan fadhiya aanan isku cusbayn. waxaan jecelahay haddaad iga raalli noqotaan inaan wax yar oo dulxaadsi ah aan idinka sheego waa kuma xildhibaan Asad, maadaama aan ahay xildhibaan cusub. xildhibaan Asad wuxuu dugsiga qur-aanka iyo kii hoose iyo dhexe uu ku dhameeyey magaalada Buuloburda ee gobolka Hiiraan, dugsiga sarena magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe. sanad dugsiyeedku markuu ahaa 1983 ilaa 84, khaasada dugsiga beeraha. kadib 2 sano oo gurmad qaranka oon ka galay gobollada Shabeellada Hoose iyo Banaadir, waxaan ka baxay kulliyadda waxbarashada ee Lafoole qaybteeda beeraha iyo culuumta biology-ga. intii aan arday ka ahaa kulliyadda waxbarashada Lafoole, waxaan si mutadawacnimo leh aan bare uga noqday dugsiga sare ee beeraha ee Afgooy. waxaa kale oon muddo kooban ka shaqeeyey mashruucii beeraha ee Bay Project ee magaalada Baydhabo iyo wasaaradda beeraha qaybta la dagaalanka cudurrada cayayaanka beeraha. 1992 ayaan u qaxay waddanka Mareykanka. muddo 28 sano ah ayaan ku noolaa magaalada San Diego ee gobolka California. waxaan ka baxay kulliyadda tababarka booliiska ee Miramar ee ku taala magaalada San Diego. kulliyaddaas oo loo yaqaan inay tahay kulliyadaha ugu fiican ee dhinaca amniga. 20 sano ayaan ahaa sargaal ciidanka booliiska waaxyihiisa kala duwan, khaasatan waaxda xiriirka bulshada ama community policing oon si gooni ah ugu takhasusay. 2 sano iyo badhkii ugu dambeeyey waxaan la taliya dhinaca booliiska ka ahaa hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah ee dalka gudihiisa. waxaan dhisidda ciidanka booliiska kala shaqeeyey Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. mudanayaal, sida ku xusan xeer hoosaadka aqalka qodobkii 13 doorashada gudoomiye iyo labadiisa ku-xigeen waa dastuuri. shaqadooduna waxay ku xardhan tahay dastuurka iyo xeer hoosaadkaba. sidaa daraaddeed waxaad gudanaysaan waajibaad dastuuri ah. mudanayaal, sidaad og tihiinba baarlamaanku waa hay-adda sida tooska u matasha shacabka Soomaaliyeed, waana hay-adda ugu sarreysa hay-adaha dawliga ah marka la fiiriyo qodobka 63 ee dastuurka. golaha shacabku wuxuu leeyahay awood u keli ah sida wax ka beddelka dastuurka, ansixinta, diidmada iyo wax ka beddelka sharciyadaba. waxaa kale oo baarlamaanku ay shaqadiisu tahay korjoogtaynta shaqada hay-adaha fulinta iyo wixii lamida. sidaa daraaddeed golaha shacabka ayaa u dhaartay oo kitaab gacanta u saaray inay u adeegaan danta dalka, dadka iyo diinta, dhowraana dastuurka, kaasoo siiyey awood dheeraada. awooddaasuu dastuurku siiyey golaha waxaa la imaanaya mas-uuliyadda. sidaa daraaddeed golaha ayaa si toosa u qaadaya mas-uuliyadda dhibaatada haysata shacabka Soomaaliyeed ee ay keentay dowlad xumadu. si aan u gudano waajibaadkeenna
waxaan u baahannahay inaan dooranno guddoon golo shacab oo leh aqoon waayo aragnimo karti iyo daacadnimo waa inaynu maanta ka gudubno dhaqankii baryahan ku batay dowladda Soomaaliyeed ee ahaa aqoon iyo garasho la dirirka mudanayaal hogaamin dal yar oo burburay wuu ka dhib badan yahay hogaamin dalal waaweyn oo xeerar iyo shuruuc leh sidaa daraaddeed waa in la soo xulo guddoon leh aqoon waayo aragnimo karti iyo daacadnimo mudanayaal golaha shacabka 11aad wuxuu ku soo aaday xilli xasaasi ah oo cabsi weyn laga qabo in qarannimadii Soomaaliyeed ay dib u sanbiriiraxato waxaana hor yaalla ajandooyin waaweyn oo hortabin u leh qarannimada iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed ajandooyinkaas sugaya baarlamaanka 11aad haddaan ka soo qaato qayb yar oo kamid ah 3 qodob oo kale midda koowaad waxaan u arkaa inay tahay dhamaystirka dastuurka Soomaaliya waxaa lagu xukumaa dastuurku meel gaar ah oo la ansixiyay 2012 12 sano gol kasta kan kale ka dambeeya ayuu sii gudbin jiray weli lama soo saarin dastuur dhammaystiran dhamaystir la'aanta dastuurku waa waxa ugu weyn ee ragaadiyay qarankan dhaliyayna xasilooni darrada siyaasadeed waa in golaha shacabka 11aad dhammaystiraa dastuurka sida laga haya abwaan Soomaaliyeed wuxuu yiri fikradaad dhiraandhirin jirtay ee dhaaxadaba joogtay inaad dhaliso gool iyo inaad dhimato mooyaane dhexdhexaad inaad kaga tagtaa waa dhabcaalnimo waana meesha ay hadda taagan tahay dhisidda garsoorka oo ah qodobka labaad oo aaminsanahay inay tahay qodob aad iyo aad muhiim u ah dhisidda garsoorka iyo maxkamadaha dastuuriga garsoorku weli wuxuu u shaqeeyaa sidii nidaamkii hore ee dawladdii militariga golaha shacabka 11aad waa inuu meel mariyaa nidaam cadaaladeed oo la jaan qaadi kara nidaamka federaalka taasi waxay meesha ka saaraysaa shaqo qabsiga dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah waxa kale oo ay noqonaysaa marjac loo noqdo marka ay soo baxaan muranada dastuuriga ah lagagana kaaftoomo la jiifiyaana banaanta maanta ay la caadaystay qodobka saddexaad waa nabadgelyadu waxay buddhig u tahay horumarka waddanka waana waajib saaran golayaasha dawladda in la sugo amniga muwaadin kasta oo Soomaaliyeed iyo hantidiisaba meeshuu doono ha joogay waxyaabaha khalkhalka geliya amniga waxaa kow ka ah isqabqabsiga laamaha dawladda sida daraaddeed baarlamaanka waxaa mas'uuliyad dheeraad ah ka saaran tahay inuu jaangooyo siyaasad qeexan oo amniga lagu sugo waxaa aad iyo aad looga dhawaajiyay waxyaalo fara badan oo details ah oo la leeyahay waxaas iyo waxaasaan qabanayaa baarlamaanku ma noqon karo dhalo laguma korin karo baarlamaanku wuxuu ka soo dhexbaxay shacabka hadduusan shacabku amni haysanin baarlamaanka amni lama siin karo waad ogtihiin duruufaha fadhiyadii hadda kalfadhiga koowaad maalinkii koowaad waxaa ku soo dhacayay hoobayaal iyo madaxweyne baarlamaanka haddaan amniga laga shaqaynin waxaan aaminsanahay inaan baarlamaankana la hagaajin karin inaan lacag loo qori karin inaan daryeel loo samayn karin in waxyaalaha ballanqaadyada ee faraha badan ay tahay fake marka amniga waa waxyaalaha ugu muhiimsan waddankeena haddaan amniga ayna wax ka qabanin wuxuu dib ugu dhacayaa mataqaana inuu galo gumaysi waad ogtihiin ciidamo shaya waddanka jooga sidaa darteed anigu waxaan priority u arkaa arrimaha amniga qodobka afraad oon u arkay isagana inay tahay national security waa wadahadallada Somaliland oo aad loo dayacay waxaan aaminsanahay amniga inaan wax badan laga qaban karin dastuurkana aan la dhamaystiri karin iyagoon arrimaha Somaliland hal laga gaadhin arrimaha Somaliland haddii baarlamaanka haddii ilaahay yiraahdo oo ay doorataan guddoonka labaad ee baarlamaanka waxaan ku dadaalayaa arrimaha Somaliland in ay jadooyinka ugu horeeya ay noqdaan lagagana hadlo baarlamaanka wada hadal rasmi ah oo niyad ah oo xaqiiqda ku beesgareysana laga gaaro mudanayaal hirgelinta qodobadaas aan kor ku soo xusay iyo kuwa kaleba waxay u baahan tahay in la doorto guddoon baarlamaan oo yaqaan shaqadooda iyo awoodooda ay qaranka u hayaan qaranka waxaa ragaadiyay guddoon jilicsan oo u nugul gacmaynta laanta fulinta
xildhibaan maanta u heeli dadka iyo dalka dooro xildhibaan Asad Cabdirasaaq oo leh waayo aragnimo aqoon karti iyo daacadnimo kana go'an tahay inuu dalku ka baxo jahwareerka siyaasadeed nabadgelyo la'aanta iyo siyaasadda ku dhisan istuska isxaasidka iyo iskhaarajinta waxaan hortiina ka cadeynayaa inaan dadaal ku bixin doono sidii aqalkani u gudan lahaa waajibaadkiisa dastuuriga ah uguna adeegi lahaa qaranka Soomaaliyeed mudanayaal mar labaad waxaan si sharaf iyo xushmad leh idin weydiisanayaa inaad siisaan codkiina si aan qarankan ugu adeego ummadan ugu adeego baarlamaankan ugu adeego wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh